ويا مدن يا الموي waxaan kaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta diiran qiimaha badan aad iyo aad u baxoon oo u soo dhaweyseen waxaan ognahay sida haddaba la sheegay in saacado badan qoraxda la taagnaa oo soo dhaweyntiina u taagneedeen aad iyo aad baan ku mahadcelinaynaa reer Bacadweyne sida dawladnimada ugu taagan tihiin u taageerteen idinkaga muuqato waa ku mahadsantihiin intaas kadib walaalayaal waxaan idinkugu nimid safar aan ku baraynay galmudug qaybaheeda kala duwan oo ahaa safar nabadeed safar xoogaalnimo Bacadweyne aan ku soo aadnay galabtay waxaad leenahay waa dadka ugu horeeya tiina ku soo dhawaada safarkii nabadda iyo xoogaalnimada degmada Bacadweyne waxaan si gaar ah u mahadcelinaynaa dadka reer Bacadweyne inay yihiin dad aysan argagixisadu xiriirna la lahayn deegaankoodana ilaa karin deegaano badan oo galmudug baad uga duwan tihiin inaad ka xaaraantinimayseen deegaankiina argagixisada nolol iyo nabadda diiday runtii waxaad ku mudan tihiin mahad gaar ah waxaad ku mudan tihiin inay galmudug si gaar ah kugu heliso baahiyaha laga hadlay oo degmada Bacadweyne qabto waxaan ka qabanaynaa haddii Ilaahay yiraahdo degmadii Bacadweyne wasiirkii arrimaha gudaha waa ila socdaa wafdigu ka mid yahay waxaan leenahay wasiir degmada xaaladeeda gal u kuurgal soo buuxi processkii iyo sharciyadii ayaa kaloo laga hadlay oo runtii ay ugu muhiimsan tahay ama dee bini aadamkuba uusan nolol kale oo ka horeysa aynay jirin biyaha waa sidoo kale wasiirkii tamarta iyo biyaha waan la socdaa waxaan leenahay wasiir ku soo dhawow waa maqlaysaa inay baahi biyood qabaan inay baahi biyood kaliya qabaan maahan waxay leeyihiin mudnaan gaar ay leeyihiin baahiyu waa 1 iyo 2 iyo 3 qaybaha kooda ah ay ku jiraan Bacadweyne baahiyaha kaloo degmadu qabto oo caafimaad leh oo waxbarasho leh oo amni iyo booliis leh waxaan ka qabanaynaa insha Allah taala waliba booliiska iyo amniga waa la kugu soo hormarinayaa maadaama aad amni iyo booliis in la siiyo si gaar ah astaashan baahiyaha kalena sidaan sheegnay waa joognaa waa isu fariisanaynaa maamulka iyo odayaasha iyo waxgaradkaan ka wada hadlaynaa sida ugu suurtagalsan baan wax uga qabanaynaa reer Bacadweyne in badan baan idin mahadcelinaynaa waqtigoo gaaban iyo safarkoo dheeraad darteed fadhiyaan isku wareysanaynaa waa mahadsantihiin reer Bacadweyne السلام عليكم ورحمة الله وبركاته